degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir waxaa lagu qabtay kulan sagootina waxaana kulankan lagu sagootinayay Muxsin Xasan oo ka tirsanaa ciyaartoydii hore ee degmada Holwadaag waxaana kulankan soo qabanqaabiyay macallimiinta Juba Youth Academy iyo sidoo kale ciyaartoydii hore ee degmada Holwadaag waxaana xidigan ka tirsanaa ciyaartoydii hore soo martay degmada Holwadaag oo dalka dibadiisa safar ugu baxay waxaana kulankan dareenkooda ka muujiyay ciyaartoydii iyo sidoo kale macallimiintii ka soo qayb gashay kulankan sidoo kale Muxsin oo ahaa ninkii loo sameeyay sagootintan ayaana dareenkiisa la wadaagay warbaahinta waxa uu sheegay in uu aad uga xun yahay in saaxiibadii ka dhaxbaxo maadaama waqti badan uu la soo qaatay geesta kalena waxa uu sheegay inay dareen gooniyo u tahay in saaxiibadii ay maamuus u sameeyaan waxaana xidigan sheegay in uu rajeynayo inuu dib ugu soo laabto saaxiibadiis ugu dambeyntiina ciyaartii sagootinta ayaa waxay ku soo idlaatay 3 gool iyo 2 gool oo ay ku adkaadeen macallimiinta Juba Youth Academy maanta halkan waxaan ku sagootineynaa walaalkeena Muxsin Xasan Maxamed oo biridu diyaarad ku qoran insha Allah walaalkeena waxa dhahay saaxib safar salaam insha Allah nabad ku tag meel Allah meesha jeceshahay meel walba hooyo aab Allah kaaga dhig bismillaahir rahmaanir rahiim maanta kulan sagootin waxaan u sameynaynaa walaalkeena Muxsin Xasan oo maalinta biritu oo ku qoran diyaarad waxaan leenahay adoo nabad qabo noo soo laaban leenahay waxaan u socdaa dalka Qatar marka waxaan leeyahay adoo nabad qabo soo laaban leeyahay waalaikum aad ma satiin maanta sagootinka waxaan sameeynaa walaalkeena qaaliga Muxsin oo aan ugu talagalnay maadaama uu yahay najil oo Holwadaag ah waxaan rajeynayaa macallimiintii Juba Youth joogo waxa jooga macallimiin ciyaartoydii shay xulka oo degmada Holwadaag gaar ahaan xaafadda waa ku faraxsanahay kulankan oo qiimaha badan oo maanta anaga u sameeynay walaalkeena oo safar dheer naga aadi doono mar dhow waxaan ku faraxsanahay waqti badan aan isla qaadanay oo aan ku faraxsanahay Muxsin maanta inay sagootinta quruxda badan ee ciyaartoydii macallimiintii maanta ay qayb ka yihiin anaga maamul ahaan haddaan matalayna macallimiinta Juba Youth oo ku faraxsanahay dhammaan asxaabta walaalay maanta kulankaas sagootinta aad aan u salaamaa kulan aad iyo aad u qiimo badan aan filaynin runtii halkan ugu sameeyaan kulan sagootine Raja Sports iyo Astaan TV aydan runtii aad ugu mahadcelinaa sida quruxda badan ee mar walba dhalinyarta u garab taagan tahay sida quruxda badan iyo wacyigelinteeda runtii aad iyo aad u mahadsan yihiin asxaabta qaaliga walaalay kulankan qiimaha badan ee sameeyaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinaa dhamaantiin waxaan leeyahay safar salaamo bye bye oo isku soo laaban doonaa anagoo caafimaad qabno insha Allah